Ilaahay idimkii waxaa jira addoommo Ilaahay ugu dhowaaday tawaaduc iyo is-hoosaysiin, kuwaas oo naftooda u huray hadal iyo ficilba, kuna edbiyey nafahooda noocyo kala duwan oo cibaado iyo juhdi ah, si ay u gaaraan darajooyinka ugu sarreeya ee Eebbe bixiyo. Rabbiga sharafta leh wuxuu ku sifaynayaa aayadaha gebagabada Suuratul-Furqaan sifooyin qurux badan oo waaweyn isagoo leh: Addoommada Raxmaanka waa kuwo ku socda dhulka iyagoo is-hoosaysiinaya, marka jaahiliintu la hadlaanna yidhaahda nabad. Waana kuwo ku hoyda habeenkii hortooda Rabbigood iyagoo sujuudsan oo taagan. Qisadan dhexdeeda waxaan kula kulmaynaa nin adduunka kaga tegay tusaale waaraya, hoggaamiye, hanti iyo qasnadaha dunidu ku soo urureen albaabkiisa hoostiisa, haddana si deeqsinimo leh ugu qaybiyey, khayraadkeedana u siiyey dadka, kana ilaaliyey inay ku halaagto marin habaabinteeda. Isagoo ka faaruqay ku-xidhnaanshaha ku-meelgaarka ah ee adduunka, ayuu sii watay safarkiisii, isagoo duhurnimada kulaylka daran ku degdegaya si uu u dabagalo geel sadaqa ah oo laga yaabo inuu lumo, ama u jilba joogsada dheri si uu cunto nafaqo leh ugu kariyo haweenay foolanaysa, ama carruur gaajaysan oo ku sugan mugdiga habeenka madow. Wuxuu dhegaysan jiray Qur'aanka, markaasuu si qoto dheer u saamayn jiray ilaa uu suuxo, loona qaado gurigiisa, halkaas oo maalmo lagu booqan jiray, xaaladdiisuna aysan ahayn wax kale oo aan ka ahayn cabsi Ilaahay. Cabsidiisa Ilaahay aad bay u weyneed, ilaa ilmadiisu ka sameeyeen wejigiisa 2 xariiq oo madow, sababo la xiriira oohintiisa joogtada ah. Mahad waxaa iska leh Ilaahay subxaanahu wa tacaala, naxariis iyo nabadgelyana nebigeenna dushiisa ha ahaato, iyo asxaabtiisii daahirka ahayd ee nafhurayaasha, iyo dhammaan kuwii raacay ilaa maalinta qiyaame. Magaciisa oo buuxa waa Cumar ibnulkhadaab ibnunufayl ibnulcabdilcusa, waxaana loo yaqaanay magaca Abuu Xafsa. Wuxuuna helay naanaysta Alfaaruuq, kan kala saara xaqa iyo baadilka, sababtoo ah markii uu qaatay diinta sharfan ee Islaamka, ma uusan qarin xaqa ee wuxuu si fagaara ah ugu dhawaaqay inuu Muslim noqday, isaga ayaana Ilaahay ku kala saaray gaalnimo iyo iimaan. Wuxuu dhashay sanadkii 583 miilaadiga, 13 sano kadib caam alfiil, sanadkii maroodiga. Aabbihii wuxuu ahaa Alkhadaab ibnu Nufayl, awowgiisna Nufayl wuxuu ka mid ahaa ragga ay Qurayshku u laaban jireen marka ay doonayaan garnaqsi iyo xukun. Hooyadii waxay ahayd Xantamah bintu Haashim bin al-Mughiirah. Marka laga hadlayo muuqaalkiisa jireed, wuxuu ahaa nin caddaan ah oo leh midab casaan u janjeera. Wuxuu ahaa nin murqo weyn, dheer, adag, aad buuna u xoog badnaa, mana ahayn mid tabar daran ama jilicsan. Markii Islaamku uu bilaabay inuu ku faafo magaalada barakaysan ee Maka, Cumar wuxuu si cad uga soo horjeeday arrinkaas. Ma ahayn khilaaf caadi ah oo fikir isdiid ah oo keliya. Wuxuu u arkayay in Islaamku yahay wax khatar ah oo burburin kara nidaamkii iyo dhaqankii Carabtu markaas ku noolayd. Wuxuu noqday qof si adag uga soo horjeeda Muslimiinta, mararka qaarna wuu dhibi jiray, wuxuuna si cad uga hor imaan jiray dadka qaata Islaamka, isagoo doonayay inuu cabsi geliyo oo uu joojiyo faafinta diinta sharfan ee Islaamka. Kadib maalin ayuu go'aan adag qaatay, wuxuuna u baxay isagoo ujeedkiisu yahay inuu dilo Nebigeenna Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, si uu u joojiyo Islaamka sida uu u arkayay. Laakiin intii uu jidka ku sii socday, waxaa loo sheegay war si lama filaan ah u beddelay jihadiisa, kaas oo ah in walaashiis iyo saygeeda ay qaateen diinta Islaamka. Cumar markuu taas maqlay aad buu u xanaaqay, wuxuuna u jihaystay gurigii walaashiis. Markii uu gudaha u galay, wuxuu si adag u weydiiyey walaashiis run ahaanshiyaha inay qaadatay diinta Islaamka, markaasoo ay ku jawaabtay, haa, waxaan qaatay diinta xaqa ah ee Islaamka. Intaa kadib Cumar wuxuu si caro leh u garaacay walaashiis, ilaa heer garaacitaankii uu sababay dhaawac gaaray jidhkeeda. Laakiin intaas kadib, waxaa Cumar ku dhashay dareen kale oo qoomamo iyo shaki ku saabsan, lana xiriira waxa uu sameeyey inuu yahay ficilo qaldan. Wuxuu ka codsaday walaashiis Faatima inay tusto waxa ay aqrinayeen, iyaduna waxay ku tiri, adigu nadiif ma tihid, mana taaban kartid kitaabka Ilaahay. Intaa kadib Cumar wuu isdejiyey, wuuna isnadiifiyey. Kadibna wuxuu bilaabay inuu akhriyo waxa loo soo bandhigay. Markii uu akhriyey ereyada Qur'aanka, qalbigiisa ayaa si tartiiba isu beddelay. Wixii caro iyo cadaawad ahaana waxay bilaabeen inay isu beddelaan fakar, faham, iyo ugu dambayn xaqiiqo uu qalbigiisu aqbalayo. Anigu waxaan ahay Ilaahay, ilaah kale ma jiro aniga mooye, sidaas darteed i caabuda oo salaada u ooga si aad ii xasuusataan. Aayaddaas ku jirta suuratu Taaha ayaa gebi ahaanba beddeshay quluubta Cumar ibnulkhadaab, waxaana adaygii Cumar uu isu beddelay si lama filaan ah, waxaana qalbigiisa ku soo ururay iimaan iyo inuu hadda la kulmay jidkii toosnaa.
intaas kadib waxa uu u jihaystay halkii uu joogay nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Halkii uu Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee u tegi lahaa si uu u waxyeeleeyo, wuxuu u aaday isagoo doonaya inuu islaamo, taasoo noqotay bilowgii safar cusub oo iimaan iyo isbeddel nololeed ah. Cumar markuu u tagay nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, wuxuu hortiisa iyo saxaabada hortooda ku qiray islaamka. Ducadii nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee ahayd in Ilaahay ku xoojiyo islaamka midkood Cumar ibnul Khadaab ama Cumar ibnul Hishaam Abu Jahl ayaa u noqotay mid la aqbalay, waxaana Ilaahay hanuun la doonay Cumar ibnul Khadaab. Markii uu Cumar qaatay diinta islaamka, waxaa dhacay isbeddel weyn oo taariikhi ah. Qofkii hore uu ahaa mid si adag uga soo horjeeda islaamka ayaa noqday mid ka mid ah taageerayaashiisa ugu xoogga badan, isla markaana difaaca muslimiinta. Cumar ibnul Khadaab markii uu qaatay diinta islaamka, wuxuu noqday mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee muslimiinta, isagoo si weyn u xoojiyey muslimiinta iyo difaaca diinta islaamka. Kadib hijradii nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee Madiina, Cumar wuxuu noqday saxaabi muhiim ah oo ka mid ah hogaamiyeyaasha dowladda islaamka, isagoo ka qayb qaatay dagaallo lala galay kufaartii Quraysh iyo dhisidda nidaamkii islaamka. Markii nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee geeriyooday sanadkii 11aad ee hijrada, Cumar wuxuu si dhow ula shaqeeyay Abubakar al-Sadiiq, isagoo ka mid ahaa taageerayaashiisa ugu muhiimsan. Sanadkii 13aad ee hijrada, Cumar ibnul Khadaab ayaa loo doortay khaliifkii labaad ee islaamka. Intii uu xilkaas hayay, dowladdii islaamka si weyn ayay u ballaaratay, waxaana lagu daray dhulal waaweyn sida Shaam, Ciraaq, Masar iyo Faris. Wuxuu dhisay nidaam maamul, cadaalad iyo adeeg bulsho oo xooggan. Ugu dambeyn sanadkii 23aad ee hijrada, Cumar ibnul Khadaab waxaa lagu dilay isagoo tujinaya gudaha masjid ku yaala magaalada Madiina. Cumar waxaa dilay Abu Lu'lu al-Manjuusi oo ahaa addoon farshaxamiiste ah, waxa uuna ku dhuftay midi sun leh, taasoo keentay dhaawac halis ah oo ugu dambeyn sababay geeridiisa. Cumar wuxuu noolaa maalmo yar kadib dhaawaca, waxaana ugu dambeyn uu u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray mindidii sumaysneed ee addoonkaasi la dhacay Cumar. Waxaana halkaas ku eg taariikhda amiirkii mu'miniinta Cumar ibnul Khadaab, Allaha ka raali noqdee.